الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. انت داوانا يسمير والبؤاد جوكتان واندي السلامي السلام كدب مانتا وحاندين هايا محاضرة كوبان أو كسابسان أهمية الدعاء في السجود. مهمة أي لا هاي الدعاء سجود كحلق أسيوسان تهي. النبي عليه الصلاة والسلام وحوليه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أدونك وحو إلهي سبحانه وتعالى أدو يهي أدو أشب بدن يهي حلق أو سجود سن يهي مركا النبي عليه الصلاة والسلام وحوليه دعاء بدية مركا أسجود سنتين فأكثر الدعاء. هدي لو دهو حد آدي آد غفكاس أدو يهي مدحوينه أدو يهي هدي لو دهو waxba weydiisana waxba ka dalbana madaxweynaha waxyaabo badan oo culeys ku ahaay wuxuu leeyahay la fududay madaxweynuhu ka agdhow oo macnaha wax walbaba u bandhigaha. haddaba haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala xilliga aad ugu dhawaasho badan tahay ay tahay xilliga aad sujuudsan tahay maxaa ka mancihaya walaalkayga muslimka ahow inaad ducada badiso oo aad ducadaada xataa ay u badato waxyaabaha aad ku liibaanaysid aakhiradaadii oo aad ka welweshid waxyaabaha muhiim ku ah qiyaamaha haddii uu qumo waxyaabaha kuugu muhiimsan. ducooyin marka aan idiin soo xulayaa jiro oo aad iyo aad u qiimo badan. ducooyinkaasi waxaa laga rabaa inaadan hilmaamin 3 duco weeye. waxaa laga rabaa marka inaadan hilmaamin oo aadan ku hilmaamin marka aad sujuudsan tahay. ducada koobaad Allahumma inni as'aluka xusna al-khaatima waa ducadaasi waa duco weyn. ilaah waxaan ku weydiisanaa xusna al-khaatima khaatimada iyo marka ugu dambayso oo macnaha aad geeriyo hayst ilaahay subxaanahu wa tacaala tawfiiqda uu ku waafajiyo adigoo tawxiisanaysid aad dhimatid wax ka wanaagsan ma jiraan. laakiin haddii khaatimadu ay ka halawdo wixii aad soo dadaalaysay oo dhan iyo cibaadadii aad soo waday oo dhanba wax kama jiraan. marka waxaa loo baahan yahay ducadaasi inaad ku celceliso markii aad sujuudsan tahay. waa duco basiid ah qof walba oo aanan garanaynin hadda uu baran karo. ka faa'iidayso waqtigaada. Allahumma inni as'aluka xusna al-khaatima. ducada labaad Allahumma rzuqnii tawbatan nasuuxatan qabla al-mawt. ilaah waxaan ku weydiisanaa tooba nasuuxe ah oo la aqbalo oo shuruudeedii oofsatay oo la igana aqbalay ayaan ku weydiisanaa intii aanan geeriyoonin. waa ayduna wax weyn oo haddii aad towbada ilaahay uu kugu dugo intii aadan geeriyoonin oo ilaahayna uu kaa tooba aqbalo qofkii tooba keeno asigoon dambaabin oo lamid yahay qof aan dambi samaynin oo lamid yahay oo ilaahayna uu ka aqbalo subxaanahu wa tacaala. ayduna waa wax weyn ha hilmaamin. ducada ugu dambayso oo aan idinla jeclaado maanta inaan idiin soo gudbiyo waa Allahumma yaa muqallib alquluubi thabbit qalbii calaa diinika. allaha qulubta gedgediyow qulubtayna ku sug diinta qulubtayda qalbigayga ku sug diinta islaamka. ilaahay subxaanahu wa tacaala muqallib alquluub waaye. waxaad arkaysaa qof wanaagsaneed oo isbedelay. waxaad arkaysaa qof faasid ahaay oo balaayo ku jiray oo laga faka la oo toobad keenay oo wanaagsan aad arkaysaa. marka ilaahay weydiiso xilligaad ilaahay u dhowdahay waaye in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kugu dugo towbada inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbigaada uu ku sugo diinta islaamka in ilaahay khaatimada uu ku hagaajiyo. waa 3 duco aad iyo aad qiimahooda ay u sareeyaan. waxaa loo baahan yahay inaad baratid. waxaa loo baahan yahay inaad ku camal fashid oo xilliga aad sujuudsan tahay aad ka faa'iidaysatid. waxaa loo baahan yahay asxaabtaada inaad la wadaagtid oo aad sii sheergaraysid. haddii aad nagu cusub tihiin boga laag saara sii sheergareeya khayrka faafiya wanaagga aan iskugu kaalmayno insha allahu tacaala. haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu waqtiga inoo qadaro oo inoo dheereeyo waqtiga oo macnaha uu inoo fududeeyo muxaadaro kala duwan ayaan iskugu imaan doonaa oo aan idiin soo gudbi doonaa insha allahu tacaala. laakiin igu saaciida wanaagga mudan in la faafiyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.